xalay waxaa magaalada muqdisho lagu bixiyey gaariga labaad ee Hyundai-ga kaas oo ku guuleystay Cabdiraxmaan Nuur Maxamed oo ka mid ah macaamiisha shirkadda Somtel ee ku nool degmada Buur Hakaba. Munaasabadda lagu bixinayay gaariga labaad waxaa goobjoog ka ahaa ganacsato bahda waxbarashada, mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo Dahabshiil Group. Sheekh Cabdilxayi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda SIMAD Dr. Maxamed Maxamuud ayaa ku ammaanay shirkadda Somtel doorka ay ku leeyihiin in dalka ay wax ku celiso. ku faraxsana geeka inaad ku guulaysatay barnaamijkaas oo baabuurkii wareejow baabuurkaas kii wareejowna hilimoodi owraad walyaab leh haytay ya meelayaala taasa ruma wase hamar marooga buurleen guurew taasa meelayaala eedeedan ka faraxsana baabuurkaas inay ada Buur Hakaba iyo areas la kuwada Somtelna eedeedan ka mahasanta hoolasyoon qobati. Madaxa waaxda ganacsiga ee shirkadda isgaarsiinta Somtel Cabdulaahi Cali Caamir ayaa ka warbixiyey barnaamijka 10,000 oo hadiyadood lacagaha ah oo ay shirkaddu qorshaysay. lacagta shirkaddu ay u qoondaysay waa lacag $1 milyan ku dhow. inta hadda aad arkaysaan 10,000 oo hadiyadood waxa la jira in shirkaddu marka ugu dambeysana ay bixin doonto Dahab Tower oo ah towerkii ugu dheeraa Muqdisho oo shirkaddu hadda dhismihiisa ay bilowday markuu dhamaado apartment kamida iyo xafiis kamida in loo tartami doono. tartankan hadda socdaa 10,000 hadiyadood waxa ugu qaalisan oo meesha yaala waa gawaaridan Hyundai-ga oo brand new-ga ah oo aan hortood la wadan 0 mile ah. gaari qaaliya oo $40,000 qiimihiisu ku dhow yahay oo ilaa 3 bilood aan ugu talagalna bishiiba mid diibayno waxaan isleenahay waa qiimo aad weyn. Maariyo ku-xigeenka ahna madaxa howlfulinta guud ee shirkadda isgaarsiinta Somtel Aadan Xaaji Yuusuf ayaa sidoo kale goobta ka hadlay. waxaa farxad weyn inoo ah inaan maanta hortiina halkan ku guddoonsiino walaalkan Cabdiraxmaan oo ka mid ah macaamiishannada sharafta leh ee u tartamay inuu ku guulaysto gaadhiga Hyundai-da 0 kilomitir oo halkan gadaasheeda taagan. Cabdiraxmaan waxaan leenahay allaha kuu barakeeyo, allaha ku shaqaysato oo shaqo ku abuuro oo aad wax ku anfaco allaha kaaga dhigo. oo lagu wareejiyay gaariga ayaa cabiray dareenkiisa iyo sida uu ugu guuleystay gaarigan qaaliga ah. gaarigan aad u jeedin oo garabkayga taalo oo Hyundai-ga ah sidaa u jeedin waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin dhammaan macaamiisha adeegga Somtel. wallaahi lama soo koobi karo waqtigaas marxalad hadday huntahay tii ay ugu humeedaan ku jiray gaariga iga haleesnaa oo kaambi igaaga fadhiyey lacagtiisana $200 leedahay ayadoo abbaar saacadii 12 oo 15 daqiiqo dhimanaa lay soo wacay. waxaan ku haynaa gaari Hyundai oo aad ku guuleysatay shirkadda adeegga Somtel alayna run ahaantii waa rumaysan kari waayey inta badan juhdi badanaa la geliyey waa lay soo wacay shirkadda shaqaalaha shirkadda Somtel markaasaan garwaaqsaday inay wax ka jiraan gobolaan ugu soo tagay anoo jooga degmada Buur Hakaba aan ka soo baxay diyaarada la igu keenay xamar diyaaradaan ku imaaday maasha Allah caawna waxaan joogaa xafladii oo guddoonsiiska ahayd aadaan uga faraxsanahay. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahabshiil. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel. mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.